Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalkani waxa uu ku saabsan yahay oo aan uga hadlaynaa markaa website-ka ugu ballaaran ee aad kala soo degi karto sawirro free footage images aad kala soo degi karto si aad markaasi ugu qabsato hawlahaaga ama markaasi designing-ka iyo waxyaabaha aad sameynayso aad ugu qabsato. Way jiraan website-yo aad iyo aad u tiro badan oo lagala soo dego sawirro free balse laba ayaan halkan kusoo qaadan doonaa markaa. Labadaasina waa labada markaasi ugu populaarsan ee laga isticmaalo sawirrada free-ga ah. Okay, marka ugu horeysa ka koobaad haddii aan ku horeyno waxaa la yidhaahdaa Pixabay website-ka. Website-ka waxaa la yidhaahdaa Pixabay. Pixabay waxa uu shaqeeyaa markaasi qaab aad u fudud oo aad markaasi sawirradaada iyo waxyaabaha aad la soo degayso ama free footage-ka aad u baahan tahay on copyright ka lahayn aad kala soo degi karto. Haddaan imika halkan ku qoro Pixabay, haddaan halkan ku qoro Pixabay, haddii aan halkan ku qoro Pixabay, okay, pixabay.com. Pixabay waxa ay leedahay markaasi application u gaar ah oo aad Play Store-ka kala soo degayso ama App Store-kaaga aad kala soo degayso, dabadeedna markaasi si free aad u isticmaali karto si aad iyo aad u fudud oo sawirrada markaasi ugala degi karto. Pixabay qaabkani kugu soo baxaysaa sawirro markaa free footage oo aan copyright lahayn oo free ayaad markaa ka helaysaa, aad iyo aadna u tiro badan, aad iyo aadna u qurux badan. Marka ugu horeysa waad markaasi is-register garanaysaa oo waad join garanaysaa markaasi website-ka si markaa aad awood ugu yeelato inaad la soo degto sawirro aad iyo aad markaasi u tiro badan oo aan xadidnayn. Gmail-ka iyo waxyaabaha ama markaasi accounts-ka aad leedahay baad halkan gelin doontaa Facebook ama Google. Hadda Google ayaan doortay si markaa Gmail-ladeyda kaan doonayo oo automatic ahaan markaasi igu xidho. Okay, waxaan dooranayaa hadda kan Gmail-kaygana dooranayaa. Gmail-ka markaan doorto hadda waa markaasi ugu register garaysan yahay. Okay, sidoo kale waxa aad markaa ku samayn kartaa uploading in aad adigu sawirran ku darto oo sawirran aad kusoo upload garayso ayaad samayn kartaa. Sawirradana markaasi aad Pixabay soo geliso, laakiin inta badan inaku sawirran ma gelinay ee sawirran ayaan kala soo degnaa. Qaybtan sare haddii aad doorato halkan waxaa kaaga soo baxaya icons ama markaasi category baa kaaga soo baxaya media, photos, illustrations, pictures, videos iyo music. Intaba markaasi waa ku jira. Music baad ka helaysaa, waxaad ka helaysaa sidoo kale videos, sidoo kale pictures baad ka helaysaa aan background lahayn. Okay, marka ugu horeysa photos baan markaa eeganayaan dooranana. Photos qaabkani markaasi sawirradii kugu soo baxayaan sawirro markaasi aad iyo aad u tiro badan. Searching baan odhanayaa marka waxa aan doonayo ama waxa aan sawirka aan rabo noociisa ayaan halkan ku qorayaa markaa. Hadda haddii aan ku qoro morning ama subax hore ama aroor haddii aan ku qoro waxa igu soo saaraya markaa sawirradii aroornimada ku saabsanaa oo idil dhammaantood ayuu halkan iga soo saaraya si free ayaan markaa ugula degayaa. Just kaliya okay baa siin saas oo dul taabanaysaa click then halkan waxaad dooran doontaa free download baad dooran doontaa. Halkan hoostana waxaa ku qoran Pixabay license free for commercial use, no attribution required. Markaa si free ayaad u isticmaali kartaa oo ganacsigaaga iyo hawlahaaga aad ugu isticmaali kartaa. Okay, free download baad odhanaysaa, then resolution kaad rabtad halkan ka dooranaysaa markaa. Resolution kala duwan baa halkan ku jira 426 853 1280 5304 waa afar resolution ka markaasi adigu aad rabto aad ka dhiganaysaa. Kan ugu hooseeya waa ka ugu weyn oo 12.5 MB, kuwa kalena waa KB. Marka kii aad adigu rabtad ka dhiganaysaa. Hadda anigu kaasaan ka dhigayaa, then download baad odhanaysaa. Download markaad tiraahdo si automatically ayuu kugu download-garanayaa. Qaybtan hoose ayuu kaa soo saarayaa, waad arkaysaa. Qaybtan hoose ayuu kaaga soo saarayaa wuuna soo download-gareeyay. Markaa saasuu markaas device-kii kusoo galay. Sawirkiina waad adeegsan kartaa markaa. Application-kiisana haddaynu ka horeyno ama application-ka Pixabay ama website-kani uu leeyahay marka ugu horeysa Play Store-ka tegaysaa, Pixabay baad ku qori doontaa. Play Store-ka ayaad tegaysaa, Pixabay baad dhankan ku qori doontaa. Pixabay aad halkan saa ugu qoraysaa, then waxaa markaasi uu kuu soo saari doonaa kan ugu soo sarreeya oo ah Pixabay oo kii sawirrada lagala degayay. Hadda anigu igu jira open baan odhanayaa. Open markaan idhaahdo qaabkan uu kugu soo baxaya.
sidii imika website-ka aan ugu galnay oo kale ayaad markaasi is-register garanaysaa ood markaasi gmail-ka gashanaysaa si aad active u noqoto ama sawiradaad ula soo degi karto. qaybta sare aad ku dhufan doontaa halkan add account kaaga soo saari doonaa ama register ama sign up kaaga soo saari doonaa ama join. marka intaas mid baad dooran doontaa kadibna gmail-kaaga ayaad isku register garan doontaa ama isku diiwaangelin doontaa. haddana qaybtan saa idhahdo qaybtan discover-ka halkan waxaa iga soo baxaya sawiradii aad ku tirada badnaa ee meesha ku jiray. sidoo kale qaybta yare halkaas setting haddii aan taabto halkan waxaan ka dooranaya sawiradan doonaya nooca ay yihiin. haddii aan photos doonayo, haddaan illustration doonayo, hadda marka illustration haddii aan ku dhufto then halkan horizontal aan ka doorto ama vertical labadaas uu leeyahay. horizontal baan dooranaya then back baan odhanayaa sawiradii illustration oo dhan soo saaraya oo qaarkoodna background leeyihiin qaarkoodna aanay markaasi wax background lahayn. waad aragtaa marka inuu isoo saaray sawiro illustration ama kuwa la sawiray oo gacanta markaasi loo adeegsaday ama kartoon ahaan u samaysan. halkaasaad ka dooran doontaa sawirada. okay dhankan haddaan usoo celiyo halkan waxaa aad searchin garanaysaa oo dhankan ka baadhaysaa sawirka aad rabto ayaad halkan ka baadhaysaa. hadda haddii aan ku qoro morning halkan ku qoro tan waxaa ii soo saaraya sawiradii aroorta ku saabsanaa dhammaantood ayuu halkan iga soo saaraya. sawirkan hadda soo dhowgarinayna oo kale ayaa halkan markaasi ku jira. okay illustration kad markaa halkan ka bedeli doontaa photos baad ka dhigan doontaa then back baad odhan doontaa. sawiradii markaa si caadiya oo waxay noqonayaan background keliya. okay dhankan haddii aad usoo wado iyadana waxaa markaasi ku jira category-gii animalist background building business computer education fashion feelings food health industry music nature people aad iyo aad markaasi u tira badinka aad doonaysaad kala bixi doonto. computer hadda ku dhufato sawiradii computerka ku saabsanaa dhammaantood ayuu halkan kaaga soo saaraya. halkaasaad markaasi ka adeegsan doontaa Pixabay app iyo markaasi website-ka labadaba.